raxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan akhyaarta qiimaha leh aad baan u salaamayaa meel kastoo aad ku sugantihiin dacalada dunida. Haddii aynu sharaxaad kooban ka bixino alaabtanina hortaala ee forever product forever living product qeybtan weliba cholesterolka beer subaga iyo dhiigkarka qaabilsan maasha allah. Haddii aynu sharaxaad ka bixino biidnillah waxaynu isla eegi doonaa waxtarka ay leeyihiin. had iyo jeer waxaynu wada ognahay alaabteena qeybta caafimaadku in waxtarkeedu uu sareeyo oo ay aad iyo aad u caawiyaan xubnaha jidhka biniaadamka isla markaana qeybta weliba uur ku jirta aad iyo aad ugu sii xeel dheer yihiin. Haddaba inagoo uga faa'iidaysanayna baahiyaha kala duwan ee ay dadkeenu u qabaan alaabteena, inaguna aynu doonayno inaynu iyagii barno oo uga faa'iideyna alaabtan waxtarka ay leedahay. Marka qofku uu ka cabanayo cholesterol waxa uu ka cabanaya waa beer subag fara badan oo jidhkiisa ku jira una baahan in laga qashin saaro laga nadiifiyo si uu uga badbaado xubnihii markaa shaqada gabayay ama shaqada joojinayay. Si looga hortago waa in qofkii uu helaa qashin saarayaal dabiiciya iyo nafaqeeyayaal dabiiciya iyo qaybo weliba hoos u dhiga ma garanaysaay dhiiggii karayay ama dhiiggii ma garanaysaay halista qofka ku keenayay inay xubnaha qaar istaagaan amaba halista ku keenayay inuu qofku wadnuhuba istaago ama mushkilado fara badan oo kale uu ka dhaxlo. Haddaba si aynu ugu soconno qeybteenani waxay ka kooban tahay 4 caagadood. Hadda waxa inoo muuqda waa 3 caagadood, laakiin caagada jaalaha ama huruuda 2 ayay noqon doontaa insha Allah si ay qofkii u hayso 30 cisho. Hadda tan meesha saaran 15 cisho qofka haysaa, laakiin marka la labeeyo 30 cisho haynaysa. Maadaama ay alaabta guud ahaan la doonayo inuu qofku 30 cisho haysto oo muddo bila inuu qaato oo wada la doonayo 3 bilood baa ugu fiican oo alaabtan la wadi karaa. 3 bilood mar ma wada iibsan karo qofku, laakiin bilba mar buu qaadan karaa. Maadaama uu qofku rabo bilba mar inuu qaato waa in bishii la iskugu dhammaystiraa. Alaabtan waxay ka kooban tahay 3 caagadood, 3 nooc bay ka kooban tahay oo 4 caagadood u dhigma. caagada koobaad waa aloe vera gel, waa caagadii huruud ahayd ee dacarta ka samaysnayd. Dad badan ba waxay u qaataan inay saliid tahay. Samayskeeda ama asal ahaan qaabkay u eg tahay baa u eg caagadaheennii saliidda lagu shubi jiray, laakiin caagadani waa caagada ugu caansan shirkadeena uguna waxtarka badan leh qaybaha caafimaadka marka laga hadlayo uur ku jirta gaar ahaan. Sidaa darteed maadaama ay dacar tahay dareera ah, dadkeenuna ay ogyihiin waxtarka dacartu ay leedahay, adduunyadoo dhan ay ka markhaati kacday, inagoo ka faa'iidaysanayna aloe vera gel waxay u fiican tahay cudurrada uur ku jirta ku dhaca. Hadday tahay gaastii, hadday tahay dhiigkarkii, hadday tahay beer subagii, hadday tahay macaankii iyo hadday tahayba calool dhaqaajintii aad bay ugu habboon tahay. Haddaba maxay qabanaysaa? Waxay qabataa sifaynta tuubooyinka dhiigga raaca. Tuubooyinka dhiiggu uu raaco ayay sifaysaa. Mar haddii tuubooyinkii la sifeeyana beeryaradii baa badbaadaysa, xameytidii baa badbaadaysa, keliyihii baa sidii loogu talagalay shaqadoodii u qabsanaya, beerkii baa sidii loogu talagalay shaqadiisii u qabsanaya. Sidoo kale uur ku jirtii mashiinadii cuntada shiidayay ama ridqayay baa sidii loogu talagalay wareegoodu u soconaya ama u shaqaynaya. Sidaa darteed qof walba baahi buu u qabaa caagadan huruuda ee dacarta, ha laga wada faa'iidaysto. Sidoo kale waxaa meesha ku jira Arctic Sea waa caagada iyaduna cadaanka, waxay kasoo jeedaa asal ahaan oo laga sameeyey kalluunka qaybaha ugu muhiimsan ee jirka biniaadamka u baahan yahay. Waxaana la yidhaahdaa omega 3 ama omega fish saa u taqaanaan. Waxay aad u caawisaa iyaduna neerfaha iyo aragga indhaha, iyo marka goonideeda loo isticmaalayo neerfaha, aragga indhaha iyo weliba fahanka ama xasuusta ama ma garanaysaay maskaxda ayay aad ula shaqaysaa koriinkeeda. Sidaa darteed ha laga faa'iidaysto iyadana. Markay qaybtan ku jirto waxay ka caawidaa awoodii iyo waxay aad ogala qayb qaadataa in sidii loogu talagalay subagaas loo dhimo ama loo yareeyo. Oo had iyo jeer kalluunku dee subag ma wato ama subag fara badan ma keeno isagu. Sidaa darteed waxaa kaloo ku jira caagada loo yaqaano garlic and thyme waa caagad inta badan iyaduna kasoo jeeda fiitamiinadaas waxaa ugu caansan toonta shayga la yidhaahdo. Toontuna runtii aad bay u daryeeshaa wadnaha iyo dhiigaba aad bay ula shaqaysaa waana sifaysaa. Waxa intan oo dhan la isugu keeno waa sifayn guud. Haddii dhiiggii la sifeeyana blood pressure-kii dhiiggii kacayay meesha uu ka baxayaa. Sidoo kale macaankii kacayay ama hoos u dhacay meesha uu ka baxayaa. Sidoo kale subagii badnaay jidhkeena ku jirayna waa yaraanayaa. Sidaa darteed way iswada caawiyaan 3 item oo 4 noqda oo caagada huruuda 4 laga dhigay. Hadduu qofku rabo inuu cholesterol ka dawoobo ama uu ka bogsado waa inuu alaabtan 3 bilood wada insha Allah biidnillaahi kariim. Qaabka loo qaataa waxa weeye caagada jaalaha ama huruuda 6 fur oo subaxiya ama 60 milli
oo subaxda hore ah intaan cuntada la cunin ka hora iyo 60 mili oo maqribkiya casar iyo maqrib dhexdooda ah 60 mili iyo 60 mili marka la isku daro 60 iyo 60 marka la isku daro waa 120 mili 120 ml weey amaba 6 fur iyo 6 fur 12 fur han idhaahno tan kale Arctic Sea duna iyaduna waa xabad iyo xabad subaxdii cuntada ka hor iyo xabad maqribkii cuntada ka hora toontuna waa sidaas lamid waa xabad iyo xabad iyaduna marka ma sha Allah qaabkaas baa loo qaataa muddo 3 bilood qofka ka cabanaya dhiikar ama cholesterol beer subag badan waxaa loogu talagalay inuu 3 bilood joogteeyo laakiin marba bil buu qaadan doona insha Allah si ay dhaqaalihiisa iyo jeebkiisina ay ugu saamaxaan insha Allah aad baad mahadsantiin ka faa'iideysi wacan qaybtan Forever Gel Arctic Sea iyo garlic and thyme oo la isku daray waxay dawo ka yihiin dhiikarka iyo waliba cholesterolka beer subaga faa'iidooyin kale oo far badan way leeyihiin ka faa'iideysi wacan insha Allah